maalin wanaagsan cabdilaahi soo dhawow dhammaan daawadayaashuna soo dhawaadaan. Eh, maanta waxaynu mar kale isugu nimi inaynu ka wada sheekaysano mowduuc kale oo daaran isla ifafaale iyo shaacsana bulshada oo ka mid ah kuwa kala duwan ee siyaabo kala duwan aynu ugu fiirsano. Eh, marka maalintii markay bisha ahayd May 14-keedii waxaad Facebookaaga soo dhigtay qoraal aan si gaara ugu dul fekeray dad badan oo kale oo Soomaali ahayna ay saas oo kale ay ugu dul hakadeen. Waxaad ku bilaabmayay qoraalkaasi haddaan dadka xasuusiyo. Waxaa jirta arrin aan isku arkay Soomaali badan aan ku arkay oo ah in qofka Soomaaliga ah marka lala taliyo uusan sawiran karin waxa lagala talinayo. Marka halkaas baad ka amba qaaday eh, doodaas iyo fiiradaas aan dhaho ku aadan tala qaadashada iyo tala garashada ayaan ayaan jeclaysanay inaynu ka wada sheekaysano si bal aynu u aragno mushkiladdu intay leeg tahay iyo waxa inoo muuqday gaar ahaan adiga cabdilaahi aan ku muuqday kadibna aynu isla falanqayno kow waxaa muuqday muxuu yahay talow maxaa u ah xididadiisa aroorsan iyo halka uu kasoo amba qaadayo ama ka dambiil qaadanayo. Sidee baynu u fahmi karnaa inagoo adeegsanaynaa aragtiyaha iyo tijaabooyinka sugan ee cilmiga ah iyo dabcan dhaqankeennaba. Sidoo kalena mushkiladdu dee hadday sida aynu u malaynayno u weyn tahay maxaa xala oo halkee baa looga gudbi karayaa oo sawirashada talada eh, sidee baa loo horumarin karayaa. Marka intaas baan rabnaa inayn maanta doodeennu ku dul aroorto wada sheekaysigeennu. Marka ugu horreyn waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo oo aad sida dhalinyarada dambe isticmaasho aad ka dabageyso dadweynaha bal arrinka kuu muuqday iyo halka uu ka shidaal qaadanayo. Soo dhawaabde. aad baa mahadsan tahay cabdicasiis. I hope codkayga si fiican loo maqlayo. Waxaan Fiican. runtii kaaga mahad celinaya marka hore mawduucan inaad runtii sidoo kale aa xiisaysay oo kula noqday mawduuc muhiim ah iyo inaad ku talisay inaan ka sameyno programkan maaragta dhinaca ku saabsan tala qaadashada iyo talooyinka. Mawduucan adiga waxaan ku baraarugsanaa muddo dheer intii weliba gaar ahaan aan ku jiray fieldigan matalinta maaragtay caafimaadka maskaxda iyo u fiirsashada Soomaalida dhaqankeena iyo annaga laftigeena inaan reflection ku sameynano qaabka u noolnahay. Waxa kulley markaa fiirisid kuu soo baxaya waxa weeyaan waxyaalaha aan ogaaday markaa literature-ka akhrisid markaa gabayada fiirisid suugaanta markaa fiirisid khudbadihii hore ee Soomaalida siyaasiyiintooda ay jeediyeen markaa fiirisid muxaadarooyinka faraha badan ee kala duwan ee wadaadadu ay jeediyaan iyo markaa fiirisid meelaha laisugu yimaado Soomaalida waxaad moodaa in inta badan talooyin qurux badan la jeediyo dhan walbaba iyagoona xataa qoyska qofka markaa qof walba Soomaali inuu kula taliyo jecel yahay qof walba inuu taliyo tala bixiyo jecel yahay. Marka waxaad dan arkaysaa waxaasoo talooyin ah lama qaadan oo waxaan u dhaqanaa si ka duwan opposite ku ah maaragtay waxa talooyinkaas faraha badan. Marka waxaad isweydiinaysaa qofkii asagoo og inuu waxaanu talooyina loo sheegay dhan walba lagala taliyey maxaa keenaya interesting ku noqda arrintaa runtii oo aan laftirkeyga marka qaar aan isweydiiyo maaragtay talooyin badan oo aad shay oo qaadanin iyo Soomaalida markaa fiirisid iyo dhan walba markaa fiirisid individual level markaa fiirisid qoys ahaan markaa fiirisid community markaa fiirisid bulsho ahaan saa u noolnahay iyo qaabka siyaasadda guud dalka markaa fiirisid waxaa mida qof walba inuu maaragtay arrintaas uu maaragtay ku dhiban yahay asa Soomaaliya. Marka qaar waxaa is leedahay xikmad iyo wax sheeg nagama maqnaa oo wax walba oo wanaaga waa lagu taliyey shirarka waa laisugu yimaadaa markaa fiirisid qof walba aad buu talada ugu fiican inaan jeedino laakiin ku dhaqankeedii ayaan ugu adag. Taasaa marka badanaa horta keentay mawduucaas guud oo aan muddo dheer aan isweydiinayo iyo arrin ku timid markaan si gaara ula kulmay individualska shakhsiyaadka aan u sameynayo sessionada kale oo badanaa eryadooda ay ka mid tahay haddii aan dhegeysan lahaa tale hebel ama aan ku dhaqmi lahaa if maarkin I had listened to waalidkeyga parentskeyga haddii waxay ii sheegayeen ama aan maqli lahaa dhakhtarkeyga waxay igula taliyey ama aan dhegeysan lahaa xaaskeyga waxay igula talisay macnaha dad badan oo regreed noocaas oo kala sameynaya na way jiraan. Taasaa marka waxay ahayd saldhigga dooda ama qoraalkaa jira kooban aan sameeyey May 14 oo adiga aad aragtay oo haddana aan ka sameynayna programka. Marka mawduucaas muhiimka ah oo runtii ah
maaragtay in aanan dhibaatadu aysan ahayn tala la'aan iyo tala xumo, ay tahay talooyinkiyo fara badan oo la wada og yahay oo aan la qaadanayn ama lagu dhaqmaynin. taasa marka waxay ahayd wax in la baaro u baahan oo dhinacyo badan laga eego why aan ugu adagnahay ay nagu adagtahay inaan taas aan qaadano ama aan ku dhaqanno maaragtay. Marka hordhacaas aan jeclaan lahaa inaan aan ku soo koobo, kadibna aan su-aalihii wixii aad maaragta aan guda galno insha allah haddii la iraahdo. Marka waxaan ka fiiri karnaa dhinacyo kala duwan oo kale. Dhinaca waxaan ka fiiri karnaa dhaqankeena muxuu ka sheegay. Waxaan ka fiiri karnaa dhinaca cilmi nafsiga, wuxuu ka sheegay cilmi nafsiga maaragta su arrinta u sharxi karaa tala qaadashada iyo caafimaadka maskaxda. Waxaan kaloo ka fiirin karnaa oo kale dhinaca maaragtay cilmiga bulshada, kadibna talooyin inaan bixin oo kale. Marka kugu soo wareejiya Cabdicasiis. ha waxaa laga yaabaa inay noqoto arrin lagu qoslo inagoo leh talada aad looma qaatanin haddana soo jeedin doono talooyin. Marka inagoo rajeyneynaa in kalfadhigeennani uu ugu yaraan eh, inkastoo qof kasta oo inagu aynu ka mid nahay, innaga laynaga bilaabo bal siduu u arkayay talada ay wax ka yara bedesho. Marka cabdilaahi, markaad ka sheekeynaysa waayo aragnimadaas aad qof ahaan naftaada lalahayd dadka kuu imanaya goobtaada daaweynta iyo la talinta nafsada kuugu imanaya, iyo u fiirsiga aad u dhug yeelatay bulshada guud ahaanba. Markaad ka hadlayso waxyaabaha kaaga soo baxay, waxaa maskaxdeeda qaybta hore degdega usoo fadhiisatay mahmaah Soomaaliyada ahayd nin buu ka boqol u talisay. Marka halkaas baan rabaa inaan ka amba qaadno bal horta dhaqankeenu waxyaabo badan, ummad dhaqameed baynu nahay horta sida runta ah Soomaalida baynu nahay. Dhaqanku wuxuu ka mid yahay inkastoo dee dhaqan hoosaadyo aynu ku kala duwan nahay bulshooyinka iyo deegaanadu ay jiraan, misena waxa laga sameeya waxa weeye in dhaqanku uu wax weyn ka sheego sida uu qofka Soomaaliga ah u fikiro, u dhaqmo, naftiisa iyo dadka kaleba oo ula dhaqmo. Marka aan leenahay qof nin buu ka boqol u talisay, waa dayro, waa laga dayrinayaa. Waxaa laga dayrinayaa in maalinka aad dhibaatooto ay talooyinku iska soo daba dhici doonaan. Sidan yeel, liin dhanaan cun, toon cun, masaajidka tag, maya ha tegin, iska fadhiiso, biyo cab, naso, lugee. Talooyinku way iska daba iman doonaan. Marka waa mahmaah dayra ah. Waxay ka dayranaysaa in qof buka loo taliyo. Waxaana la filayaa talooyinku inay iska hor yimaadaan, dabeedna dadka khalkhaliyaan qofka buka laftirkiisa. Taasoo dhici karta dabcan. Oo dhanna digniin bay ka noqon kartaa ha isku badinin aagaga aad ka fekeraysid. Marna waxay noqon kartaa taladu sida ay raqiiska ula tahay qodobkaas markaad ka fikirto. Taa markaan ku dul dhisno, waxaad dareemaysaa dhaqankeena Soomaaliga in badanoo ka mid a, gaar ahaan reer miyiga. Reer magaalnimadu way nagu yartahay Soomaalida. Deegaano yaro kooban baa laga yaabaa in dhowr boqoloo sannadood magaalo ay ahaayeen. Hase yeeshee badanka waa reer miyi baynu nahay. Ama beerataha la noqdo ama raacataha la noqdo, ama xataa kalluumaysataha la noqday. Badanka reer miyi baynu iska nahay oo magaalooyin degan aada ma lihin. Marka inteena reer miyiga ah, dhaqanka waxa ku xoogan in qofku maarmo oo uu isbixiyo. Marka laba meelood baad dareemaysaa inay aad iyo aad iskaga soo horjeedaan. Mid ah in qofku adkaysi yeesho, resilience uu yeesho, iyo in qofku is adkeeyo oo uu resistant noqdo. Waa laba wax aad u kala duwan. Hase yeeshee dhaqankeena waxaad moodaa inuu dhiirinayo ka dambe, in qofku is adkeeyo, isbixiyo. Marka ereyga aad loo isticmaalo waxaa ka mid ah inaad isbixiso. Marka waa keligaa inaad meel marto oo aad dad kale aadan culays ku noqonin. Marka inaad dadka kale la tashato, inaad talooyinkooda ku noolaato, waxyaabahaas waxaad moodaa inuu meelaha qaar culays loo arkayo. In qofku maarmo marka waxyaabaha lagu dareemo waxaa ka mid ah. Tusaale ahaan maamayaha aadkaan anoo yar aan bartay waxaa ka mid ahaa ceebtaadu kow og tahay kun looma sheego. Marka ceebta haddaynu ka soo qaadno, maaha keliya tii ahayd wax xun oo ceeb ah oo ama anshax darra ah ama sharci darra aad samaysay. Waxay noqon kartaa in aad leedahay. Marka tusaale ahaan haddii habeenkii aan seexan kari waayo oo aan werwersanahay oo walbahaarsanahay oo naftu ay hayso, oo aan keligay ogahay, inaan dadka u sheego oo idhaahdo Cabdilaahi oo arrintaas ay haysato oo aan soo fadhiisto. Dhaqanku igumuu barbaarinin. Waa inaan is adkeeyo.
marka waxyaabaha aadka markaad miyiga joogto aad maqlayso waxaa ka mid ah waa intood dhimanba weydaan. Waa intood dhimanba weydaan, gabyaagina waa kii lahaa kacoo dhidibka rida waa intood dhimanba weydaane. marka qofku wuxuu sawiranayaa maxaad jiljilaaca iyo nugeylku inay astaan u yihiin qof dhimanaya oo huba inuu rawaxayo. kolka inaad astaamaha yeelataanna waa laga wanaagsan yahay ayaad moodaa inuu dhaqankeenu inugu ababinayo inugu soo korinayo. Eh, kolka waxyaabaha aad dareemaysa waxaa ka mid ah taladu marka aad u fiirsato eh, inaanu qof waxyaabaha la dhaliilaya waxaa ka mid ah saddex baa rag u liitaa la yidhi. marka dhaqankeenu rag wuxuu u yaqaanaa dadka oo dhan. Saddex baa dad u liita marka weeye. Kow waxa ahaa markaa matashade iyo matashiishte iyo matoshe. marka matashada lambar one laakiin matashada waa qof aan isagu taladiisa ku meel marin. sida oo kale waxa la yidhi talo waa maraad gaari weydo iyo maraad garan weydo. fiiri, talada waxaa loo qaybiyey labadaas taladu gebigeedu waa maraad gaari weydo iyo maraad garan weydo. marka maxaa ku dhacay marka qofku haleeli karo talada? qaybtaa waaba lama aqoonsana baad moodaysa, maamadaas ugu yaraan ma aqoonsana iyo dhaqanka ka dambeeya. maarmiddu marka waxyaabaha ay keenayso waxaa ka mid a sheekadii aadan galeydh caanka ahayd ee ka dhacday hawdka dhulka hawdka Soomaalida ee la sheegay inuu aad iyo aad u diiday mag kusoo hagaagtay hal keliya ayaa kusoo hagaagtay mag inankiisa qof dilay ayaa magtii tolku qaybsaday. marka neef geelaa kusoo hagaagay, tulud geelaa kusoo hagaagtay, tibuu diiday. marka kadib arrintu way dheeraydo waxay ka dhacay sheeko weyn oo dagaal xun baa ka dhacay oo odagii oo naftu iska sii gurayso ayaa laga sheegaa inuu yidhi maanta oo aan tala hayana tamar ma hayo, shalay oo aan tamar hayayna tala ma hayn. marka wuxuu hadalkaa aadan galay ina tusayaa in talada iyo tamartuna ay iska soo horjeedaan. qofka Soomaaliga ee caadiga ah hadduu tamar hayo inaanu talo u baahnaynba. maxaan talo uga baahanay anugu ma ilaahayba ima qabane ma maataan ahay anugu ma maxas baan ahay maxaan talo uga baahanahay oo kale. marka maalinka uu qofku soo rito ayaa xaaladdaas ay qofka soo ridato sida aadan galeydh wadkii u yimaado ama wax kale qofkii ay ku yimaadaan ayaa laga yaabaa inuu qofka ku baraarugo. marka tusaale ahaan haddii dadka mid ka mid a macaamiishaadu ay kugu yidhaahdaan haddaan taladii maqli lahaa dhakhtarkayga u yidhi ama waalidkayga u yidhi ama xaasku igu yidhi, maalinkaas tamar buu hayay qofku oo uu sanku taagayay sida aynu idhaahno. maantana waa dantaa u run sheegtay baynu idhaahno. marka taladii buu u baahan yahay adaday wuxuuna dareensay inuu qofka ka soo fogaaday. sidoo kale laba maahmaahood baan ayaa rabaa inaan sigana ku daro oo waxaa la yidhi nin baa wuxuu ku maahmaahay baa la yidhi talo xin roob uun baan ku garan lahaa inay tahay goortii la guuri lahaayo roob soo socdo ama la jirsan lahaa. xin roob markuu roobku soo xiime ee uu isa soo qabsaday aan ogahay inay hadda uun da'ayo ayaan tala garan lahaa. tala xin roob uun baan ku garan lahaa marka roobka ka hor saadaasha hawada ma rumaysanayo. marka waxa laga yaabaa in qofku iska soo baxo isagoo aan sidanin dalaayad ama maaragta aan kusoo talagelaynin maanta cimiladu sida ay u badan tahay ee uu si fudud u heli karayo hadduu la socdo goobaha sheega saadaasha hawada. waayo uma baahnaba, muxuu uga baahan yahay qofku marka roobku soo xiimo ayuu taladeeda garan doonaa. sidoo kale waxaa caana inaynu idhaahno ishaa ii macallina. ishaa ii macallina oo marka hawli dhacdo uma sawiran karayno inay hawshaasi sidaa aad u malaynayso armad balaayo sheeg tahayba adigu oo aad leedahay aniga sidan baa dhici karta iskada maya ha dhacdo de horta markaasaan wax ka odhan doona. marka isha ay macallina maalinka ay wax dhacaan baan wax ku qaadanaya. marka wax ku qaadashadeenu waxay ku xidhan tahay in hawshaa laga digaya ay dhacdo ama hawsha lagula talinaya lagu jeclaysiinaya aad fali weydo ee dadna aad natiijadii soo taabato ayaad dareemi doontaa qofkanow in hawshu ay intii ay ka culus tahay. kolka waxaad dareemaysaa markaad isku xidho dhaqankeenaas iyo arrimahan adigana kuu muuqday aniguna aan kuu waafaqsanay aniguba arkay naftaydana ku arkay dad kalena ku arkay in arrintu ay sal dhaqanna leedahay
hase yeeshee taasi aanay ku filnayn oo eh, aynu u baahannahay inaynu sidoo kale fahanno salka nafsadeed iyo cilmi bulshada. Mhm. Eh, Mhm. guud ahaan insaanka horta maxaynu wadaagnaa ileen dad baynu nahay innaga qudhaynuye. Sidoo kalena bulsho ahaanna maxaa inoo gaara iyo taariikhdeena iyo balwaayaheena aynu sidoo kale ku yaro noqonno si aynu bal u eegno in ay isu markhaati furayaan dhaqankii, fiirsigeennii iyo cilmigii sugnaaba inay isu markhaati furayaan si aynu u eegno. Marka halkaas bal haddaad qodobkaa wax ku darayso na waan kugu soo dhaweynayaa. Ah, sidoo kalena waxaan rabaa aynu u gudubno qodobkaas ah bal cilmiga sugan iyo cilmi nafsi wuxuu uu run ahaan inooga sheegayo. Soo dhawow. aad iyo aad cabdicasiis horta si fiican oo runtii qurux badan ayaa u sheegtay mushkiladan iyo dhaqankeena xiriir ka dhexeeya adoo isticmaalay maahmaahyo maaragtay caan ah iyo maaragtay dad badan oo arrintan ka gebiyey ama ka maahmaahay waxay ka dhaheen. Waxaa cajiib ah haddii lasoo koobo maaragtay maahmaahdii hadda aad sheegtay oo ahayd markaan maaragtay tala hayeen markaan tabar hayay maaragtay tala ma hayn markaan tala hayana tabar ma lahayn macnaha dadis maaragtay waxa dhan ay soomaalidu ay awoodooda tala qaadashada ay kusoo koomayso maaragtay maamahadaas inay inta badan kulligeen aynu u nahay maaragtay tusaale fiican noo tahay. Marka dabcan waxaa sheegtay arrintan inaan la wadaagno adduunka iyo bulshada maaragtay caalamka iyo bini'aadam maadaama aynu nahay dad badan oo ay ku adagtahay inay tala qaataan inay jiraan oo runtii marka cilmi nafsiga suu u sharaxay arrintaas inaan isu weydiino annagoo kadib ku xireyna intii aad sheegtay maamahii dhaqankeena wixii aad ka sheegtay. Marka horta marka ugu horeysa waxaa jira key psychological concepts ama fikrado waaweyn oo lagu eego oo cilmi nafsiga ku eego qofku maxaa u sahla inuu tala qaato maxaana u diida inuu tala qaadanin macnaha maxay tahay caqabadaha waaweyn ee qofkaas hor istaagi kara. Marka waxaan dhahnaa annaga horta number one shardiga ugu weyn ee qof inuu tala qaato u sahasha waxay noqotaa waxay insight ama qofka inuu leeyahay ogaal nafsadeed ama baraarug nafsadeed ama waxa la yidhahdo self awareness qofka inuu maaragtay yahay qof maaragtay og xaaladdu ku sugan yahay ama qaadan kara intuu xaaladiisa maaragtay buuqa ku jira ka dhex baxa dib u eegis ereyga waxaa isticmaala abwaankii maaragtay inuu ahaa dacar miya mise gaariye ayaa wuxuu yidhahdaa anigiyo hadraawi intaan dib u eegis waxa la yidhahdo manaa insight qofka inuu bal fiirsho maxaan sameynayaa maanta what I'm doing today maxaan sameynayaa waddadaan ku socdo iyo meeshaan u socdo ma tahay meesha saxda ahayd. Maarata marka dadka qaata waqtiga noocaas oo kale ah oo self reflection ka sameeya oo dib u eegista sameeya waxay u fudud baa la yidhahdaa inay tala qaataan. Qofkii laakiin aan taas awooddeeda lahayn oo maanta dhan ku jira buuqaasna ku xiran mid kale oo maanta dhan ku jira orod waxyaaba waqti ay ku qaataan self awareness ama reflection inay waayaan oo markaas talooyinka isaga dhex yaacaan. taa marka qofka waxaa la baraa skillska ugu weyn oo ah self reflection inuu sameeyo inuu waqti qaato inuu marmar naftiisa keli la noqdo inuu dib u eegis ku sameeyo dabcan sida uu sheegay gaari oo kale waxyaalaha aad sameynaysid waxyaala meesha u socotid. taa marka waa mid qofka marka aan lahayn self awareness-ka lahayn oo aan insightkaas lahayn waxyaalaha ku adkaanaysa waxaa ka mid inuu naftiisa exam gareeyo waatuu dhahay philosopherka weynaa ma Socrates inuu amaynaya noloshu qiimo ma laha maarta daan qofkuusan dib isu eegis ku sameyn aan examine life maarta inaysan ahayn mid aan qiimo lahayn. Marka qofka taas lahayn marka wuxuu geli karaa difaac ama wuxuu geli karaa inuusan u baahnayn ama wuu ku baraarugsanaba insightkaas ma wada taa marka waa one thing oo number one issue u weyn markano ama mushkiladda u weyn ee dadka talooyinka diida ay leeyihiin. midda kale waxa weeyaan dadku waxay u kala duwan yihiin waxa la yidhahda future thinking macnaha qofku inuu sawirto mustaqbalka marka inaad tala qaadatid ama lagu dhaho waxaan hadda ninkii diiday ninka hadda sheegaysay hasha ku soo aaday maaragtay magta diiday ma sawiran karin mustaqbalka waxaa ka dhalan kara arrintaas. marka dadka qaar waxay leeyihin waxa la yidhaahdo sawirasho mustaqbaleed iyo cawaaqib ka dhalan kara ficilka hadduu ku dhex jiro. marka qofka aan taas ku xirin habnoloodkiisa maanta iyo mustaqbalkaan isku xirin way ku adkaanaysaa inuu qaato tala ah waxa beri dhici doona waxa ay noqon karaan mafahamti. marka waxaa inta badan maarkino keenaysaa marka hadhowti inuu keliya ku mashquulo maanta
waxa maanta taagan maanta maxay tahay haddii lo 5 sano kadib waxaan saan bay noqon doonaan ama saan bay wadkaan doonaan marka dadka qaar way kula fiican yihiin visualization waxa la yidhahdaa, inaad visual u aragtid oo aad u aragtid sawir qaadasho humaag inaad ka aragtid mustaqbalka soo noqon doono ma fahamtay marka waxaa jirta tusaale fiican oo runtii aniga aan jeclahay inaan meeshan ka sheego macnaha waxaa jira dadka marka la talinaysid waxyaalaha abstractiga ideaska qaarkood ay ku adag tahay 20 sano kadib 5 sano kadib waad duqoobi doontaa ama waxaa noqon doontaa qof noocaasa waxaa u baahan doontaa aymis waxaa u baahan doontaa nolosha nolol ka duwan dadna way sawiran karaan oo waxay arki karaan ayagoo waayeel ayagoo dhibaataysan ayagoo dhibaato ku dhacday dadna ilaa waqti uu dhaco ma arki karaa marka waa awood rabbaani ah oo qof qaar dad qaarna ay leeyihiin dad qaarna aysan lahayn oo runtii ku kala marka u sahasha qofku inuu tala qaato ama tala u diido taa marka ayadana waa psychological conceptska marka la eega midda kale oo waxa weeyaan waxa la yidhaahdo I think inay tahay emotional macnaha regulation qofka waxa qof tala ma qaadan karo hadduusan xasilooneyn qof kacsan ama xanaaqsan ama murugaysan ama ooynaya badanaa tala ma qaadan karo qofku inuu dareemaa emotional macnaha dareenkiisa inuu degan yahay oo xaalad deganaansho uu ku jiro tusaalahaan oo kale hadda Soomaaliya xaaladda ka taagan oo kale xaalad kacsanaana qof walba wuxuu ku jiraa survival marka qofka marka xaaladdiisa saa ay tahay way adkaanaysaa maaragtay inuu maaragtay ama qof haddii dadka qaar badan talooyinka qaabka loo bixiyo waxaa kamid qaab ceebeen oo kale qofka in la ceebeeyo oo kale qofka marka la ceebeynayo dareenkiisu ma degana qofku waa xanaaqsan yahay qofa ceebeysay ka xanaajisay inuu tala kaa qaato way adkaanaysaa maaragtay marka inta badan dadku talooyinka waxay process gareeyaan markay xaaladoodu degan tahay ma arkino haddii ay taladu u ekaato dhaleecayn haddii u ekaato controlling qofka lagu maamulayo ama humiliation u ekaatana way ku adkaanaysaa taana marka waxaa yidhahdaa emotional regulationkuna waa qayb ka mid ah oo dareenku kacsan iyo maaragtay inuu yahay mushkilad ka mid ah mushkiladaha ka hortaagan qof tala qaato kulli waxaan ku xiri doonaa dhaqankeena iyo sida maamahayi aa sheegtay arrinta kale ayadana muhiimka ah oo dadka talooyinka maaragtay inay qaataan u diidan waxa arrin asla ognaa kulligeen oo ego kulli af Soomaali wuxuu ku noqon karaa umaleynaya qof oo isku arko qof muhiim ah maaragtay ama difaac gala marka dadka ku kalsooneen yaa sorry qabka qofka igada qofka qabkiisa af Soomaalida ereyga qabka marka qofka isla weyn yahay oo qab uu qabo kale marka taa marka waxay keenaysaa waxaa la yidhaha marka la sharaxayo igada iyo confidence-ga macna qabkaas iyo kalsoonidu labay kala yihiin ana qofku markuu iiga leeyahay ama qab markan aan ku dhisanayn kalsooni uu qabo waxaa laga yaabaa inuu aad difaac uga galo wax walba dhaleeceyn ah ama wax walba tala uu macna inuu u arko maaragtay naftiisa inay khatar la geliyo kale inuu maaragtay u arko inuu mar walba saxan yahay inuu mar walba maaragtay qaabka u fikiro qaabka dadka ka saxan yahay tahay inuu dadka caqli badan yahay inuu awood leeyahay marka hadda tabar uu leeyahay tala u baahnay daawataa tiri ereyga maato anaga ma nihin maxaa tala uga baahan oo kale waa iigadii ma arkino yaa ila talinaya aniga ma fahant marka qofka inuu awood shaashad uu haysta markaas uu dhahayo maxay sheegayaan dadka iga hor imaanaya oo kale dadka noocaas kale marka waxaa inay talooyinka diidaan waana waxyaalaha aan runtii u nahay victimka Soomaalida markay noqoto dhinaca siyaasadda dadka awoodaha hela marka xarka qof mucaarad hadda noqday oo markuu awoodda lahaa ku sheekeenay oo dhaqankaas waagaas talaasan diiday marka maalin waxaan arkay marka mid ka mid ah madaxweynayaasha Soomaaliya Soomaali oo dhahaya hadda waxaa tahay libaax bisad ha noqonin oo kale that shows you waqtigaas uu libaaxa ahaa taladii ma qaadanin haddana waxaa moodaa wuxuu kala talinayaa markana qofka kale inuusan hadda wuxuu imaanaysaa marka tabar markaan hayay tala ma helin oo kale marka iyadaasna waa qayb ka mid ah taana marka waa mushkilad kale ayna jirta mushkiladda kale jirta waxa weeyaan personality-ga marka la eego dadka qaar waa dad reactive ah dad waxa weeyaan markay mushkiladda dhacday kadib wax dhacaan bay falcelis bixiyaan marka qorsheyn iyo ka fakerid iyo tabaabusheys iyo tala maxaan yeelnaa iyo shaqadooda maaha wixii markay dhacaan bay xalliyaan dadna waa proactive waa dad ka hortaga mushkiladda dadka marka jecel ka hortagaan waxay qaataan talooyinka waxay raadiyaan xalka waxay raadiyaan inay waxaan si loo saxaa waxaan maxay xal noqon karaan oo kale inuu qof ka sii fakero dadka noocaas marka dadka proactive-ka ah waxay qaataan talooyinka dadka reactive-kana waxay fiirshaan ilaa wixii ka dhacaan ay fiiriyaan maaragtay taana ayadana waa xasadii karaa waa waxyaalaha sababa ama fududeeya ama caqabada ku ah in qofka tala qaato midda kusoo gabagabeynaya waxa weeyaan oo runtii asla ognahay dhammaanteen waa midaan traumada ama hadhada maaragtay
maaragt qofka marka uu ku jiro xaaladda xasuusaha xanuun kale laga dhaxlo mahadhada laga dhaxlo waxaa ku adkaata wuxuu qofku jira survival mode maansi u badbaadaa marka waxay meesha ka saaraysaa marka trustigii waxay ka saaraysaa is-aaminaadii marka haddaa marka adi talo fiican aad jeediso tusaalaan kusiina dhaqanka soomaaliya markaa fiiriso kale qofaa talo fiican jeedinaya qofki waxaa leeyahay horta ninkaa si fiican buu u hadlaya iyuu yahay xaguu ka yimid marka waxaa la rabaa inaan qofkan aamino taladu uu sheegay inaan danteeda ku jirto marka trustiga traumooyinkii dagaalada sokeeye dhacay dhibaatooyinka dhacay waxay meesha ka saaraysa aaminaada marka qofka talada ka qaadinaysa laftirkaaga xataa maaragtay waxaa fiirinaysaa meeshu ka yimid taladan ma danbu ujeedu ka leeyahay ma adigu ku hagardaamaynayaa ma fahamti arrintaa marka waxay keenaysaa marka inay maaragtay ay traumadii ay hor istaagto talooyinkii la qaadanaya marka waxaan is leeyahay intaan soo sheegay caqabadahan qodobadan ka soo hadlay psychological market explanationka waxay sheegi karaan dhaqankeena adoo maarkino marka dib u eegtid iyo xiriir ka dhexeeya in la fiirsho oo la yiraahdo iigada muxuu dhaqankeena ka sheegay muxuu ka sheegay self awarenesska dhaqankeena soo ku yahay dhaqankeena inuu tala qaato inuu qofka proactive noqdo oo ka hortago dhibaatada inuusan reactive yahay marka wax dhacaan kadib ka falceliyo maxay ka tahay dhaqankeena muxuu ka sheegaa future thinkingka qofka inuu ka fekero mustaqbalka 20 sano kadib Soomaaliya shan noqon doonto 5 sano kadib adiga laftigaaga qof waxaa arkaysaa 70 sano jiro weli hadda u halgamayo sidii 20 jiro oo kale u dagaalamayo u buuqaya oo aan sawirin karin 5 sano ama 6 sano noloshiisa inay ka harsan tahay hadda u badato maximum waan is dhihi karin warniyo oo siduu lacagta u aruursanayay siduu xukunka ugu dhegayay siduu meelaha u ordayay asleeda qofkan qof dhalinyaro ah ma arkin marka qofka inuu sawirin karin xataa futureka oo maalin nool yahay dhaqankeena muxuu ka sheegay waxyaalahaas marka waxa u fiican marka fiican inaan isku xirno oo ka dhiskaas gareyno laakiin psychologically I think in intaa lagu soo koobi karo sababaha keeni kara qofka mutala qaato mutala diida maaragta cabdillahi aad baad u mahadsan tahay hortii waa sidaad sheegtay marka aynu bulsho ahaan isu qiimeynayo qof ahaan mid baa u baahannahay inaynu isxasuusino oo daawadayaashuna ay markasta ku baraarugsanaadaan fiirsiga noocan oo kale ah iyo wada sheekaysiga noocan oo kale ahi xaalad shakhsiya oo qof gaara haysata hebel ama heblaayo ma khuseyso waxay khuseysaa wax guud marka haddii qof gaara uuna talada qaadanin waxa u diidaya wuxuu noqon karaa kun wax ayuu noqon karaa marka haddaynu tilmaamno waxaan rabaa intaas inaan afeef ka dhigano haddaynu tilmaamno dhowr qodob inaanay micnuhu ahayn inaad dhowrka qodob iska eegto kadibna tiraahdo kooxdaasaan ka mid ahay ama saas oo kale taas waynu u baahanay inaan iyada afeef ka dhigano haddaba waxaan rabaa inaan hadalka aad ku xidho aad culunta nafsadeed ku balbalaarisay markaynu ka sheekeynaynay ishaa ii macallina markuu qofku leeyahay ama roobka xiinkiisa unbaan talo ku garanaya markuu qofku leeyahay maamaadaas markaad eegto waxaad arkaysaa inay iswaafaqayaan faham weyn oo ah sidaad sheegtay inay jiraan dad leh wax lagu tilmaami karo maaragtay wax ku bartaa tusoo itaabsi experiential learning leh experiential learning oo marka ay iyagu arrinta soo taabtaan marka Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ceel nin gudihiisa guntiisa galay baa ka soo warrama ama laga waraysta ceel nin guntiisa galay baa laga waraysta marka taasina waxaad dareemaysaa in dhaqankeenu xaggaas uu yaro dhiirigeliyo oo uu qofka aad arkayso markaad si toosa kuguma laha dhaqanku ahaa adigu wax kasta sug intay kugu dhacayaan laakiin wuxuu ku ammaanayaa dadka markay wax ku dhaceen wax ka bartay marka waxaan rabaa inaan adeed kaaga mahadnaqo inaad xustay qodobka kalsoonida iyo maaragtay ummaddu siday kalsoonidii u dhimatay waayo waa mid ka mid a siyaabaha maaragtay doogta ama mahadhadu nafsadeed ee la wadaago ee ballaarani wadareedii ay u taabato dadku siday u wada dhaqmayeen keliya qofka dhibaatada la soo kulmay ama hawshan arkay lama ammaano oo lama yidhaahdo waxbuu ku qaatay wixii waayihii helay waxbuu ku qaatay keliya lama yidhaahdo sidoo kalena shaambad waa in loo yeelo sidaad maantay marka waa in la yidhaahdo maaniga mahebel ba waxii sheegaya marka qofka siyaasiga ah ama maaragtay ama bulshada magaca weyn ku leh wuxuu doonaha ha ahaadee hadal talo u eg jeedinaya
dadku way eegaan backgroundkiisa maarata sooyaalkiisa la eegaya waxa loonaya ma hebel baa anaga wax noo sheegaya ma hebelaya wax noo sheegaysa taasi sida wax dhan waxay noqon kartaa dhaliil dhanna waxay noqon kartaa qodob weyn oo wax ka jiraan waayo dadku inay kalsoonidu ka dhimato wax iska timi ma aha sida runtaa kalsoonida Soomaalidu may dhimanin waa la dilay kalsoonida kalsoonidu iskamay dhimanin waa la dilay marka qofka siyaasiga ah ee leh libaax baad hadda tahay bisad ha noqonin taladiisa wanaagsan waxaa loo diidayaa marar badan waxa soomaysa waxaa loo diidayaa in lagu ciqaabo wuxuu shalay ahaa iyo inuu shalay shay diidayba iyo shalayba diiday sidoo kalena aan kalsooni lagu qabin berri ka maalin inuu yeelayo isla talada hadduu xilka ku soo noqday imika madaxweynaha hore inuuna inuu yeeli doono waxaan uu ka digayo ayaa loo badinayaa marka kalsoonidu aad bay u hooseysaa marka taa waxaa mararka qaar la socon karaaba waa la fahmi karaa halka ka imanayso kalsooni darradu sidoo kale laakiin doogta ama maarata mahadhadaas waxyaabaha ay keento ee heer qof ah ka mid a inay saamayso qodobka ka sheegaysa ee ahaa in qof qaabka u maaraynaya ama u xakameynaya caadifadiisa ama dareenkiisa iyo qaabka uu iska warqabka inuu qofku iska warhayo qofku markaa iskama warhayn karo oo dareenkiisa waqti uma heli karo oo ma haleeli karaba haddii ay jiraan nabarro aan la dhayin ama xataa aan daboolkaba laga qaadin oo uu ku dul taagan yahay oo uu qarinayo ama uu isleeyahay yaan lagu arki marka ceebtaada oo ka og tahay ku looma sheego marka tusaale ahaan kufsiga oo aad inoogu dhexdeena aad ugu badan qofka Soomaaliga ah isagoo yar weliba la kufsaday dadka qoyska iyo dadka u dhadhoway oo dhan iyo waxaa la dhiirigelinayaa in la qariyo doogtaas iyo mahadhadaas iyo mushkiladaas in la qariyo xaal mastuur lagu dhameeyo arrimaha laga wada hadlo sida la yidhaahdo la iska arko odayaal iska arkaan mar haddaad aragto odayaal iska arkaya arrinna waxay u badan tahay in cid lagu jiifsaday ciddii xaqa lahayd weliba lagu jiifsaday bay u badan tahay taasi markaa waxay keeni kartaa in qofka la yidhahdo dabool af daboolan waa dahab dhibaatada ha sheegin iska aamu iska samir qadarka iyo maqanta lagu xawilo qofka oo la yidhaahdo mar kale ilaahay kaa jasaay siinaya iyo wixii la halmaala taasina waxay abuuri kartaa qof marka uu weynaado waaba hadduu weynaade oo uu kaalin gala la tacaalaya xanuuno iyo xasuuso aad iyo aad u xanaf badan oo dhibaato badan oo aanay cidina dhiiri gelinayn in daboolka laga qaado marka mahadhadan oo heer shakhsina way noqon kartaa oo taasi marka waxay diidaysaa qofku sidee buu u fakeri karayaa ama maaragtay u haleeli karayaa naftiisa inuu ka warhayo haddii naftiisu tahay waxa u weyne uu ka qajilayo ama waxa u weyne uuna wejiga siin karaynin hadday naftiisu tahay ma haleeli karayo ma rabo inay shir isugu yimaadaan ma rabo inuu mashquuliyo waa inuu dib u dhigo markaa ballan kasta oo isaga iyo naftiisu ay isku arki lahaayeen waa inuu dib u dhigo waa inuu markaa waxyaabo kale soo dhexgeliya meesha tusaale ahaan qofku inuu markaa balwadi yeesho tusaale ahaan inuu har iyo habeen ismashquuliyo inuu maaragtay meheradaha kala duwan ee nolosha dhinacyada kala duwan ee nolosha ee dadku isku mashquuliyaan sida la yidhahdo waqtiga lagu dilo inuu qofku xubin firfircoon ka noqdo qofkan markaa wuxuu ka cararayaa in isaga naftiisu ay iska soo horbaxaan ama uu maaragtay su'aalo isweydiiyaan waayo sida runta ah xanuuno badan oo aanu garanayn si alle si u wajaho ayaa jira marka haddii talooyinka aynu siinayno qofkaasi ay daaran yihiin inuu albaabkaa furo wadahadalkaas uu bilaabo waxay u badan tahay inuu markaa diido ama uu ka meermeero ama uu ka dagaalamo oo uu aan hadduu xataa yeelayo si dhayal ah ku aqbalin maxaa yeelay waxa inaan ogeyn buu og yahay wuxuu ogyahay doogtan iyo mahadhadan haysata iyo jugta nafsadeed ee uu la nool yahay ee cid uga garaabaysa iyo cid odhanaysa alla ilahay waa mushkilad ku heshay iyo waa waxay tahay in aan lagugu daawan aanay jirin iska daa taase ciddii cid ugu dhoweyd ay ka hiilisay markuu ugu baahida badnaa oo la yidhi tusaale ahaan inantii yarayda la kufsaday la yidhi ninkii kufsaday baa la siinaya lagu asturaya iyo wax lamida tusaale ahaan marka mararka qaar mahadhadu waxay isu soo bandhigi kartaa heer shakhsiga oo tani tusaale markaa ay u noqon karayso taa guud ee markaad ku dartay ah heer ummadeedna waa ku dari karaya sidoo kale
waxaan rabaa inaan iyada maadaama aad xustay kaalinta siyaasadda, eh, sida ay markaa arrintan tala qaadashada iyo tala garashadu ay uga dhex muuqan karto siyaasaddeena Soomaali ahaan. Tusaale waxaa ah markaa berigii la dilay madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa waxaa madaxweyne markaa waxaa la socday oo madaxweyne kumeel gaara shantii cisho ahaa Sheekh Mukhtaar oo gudoomiyihii baarlamaanka ahaa. markaa Sheekh Mukhtaar waxaa jira waraysi laga qaaday horaantii qarnigan isagoo nin weyne. waraysigaas markaa wuxuu ka sheegay qodob aad iyo aad u xiiso leh oo aan rabo inaynu xusno si aynu u aragno bal sawirashada masaa'ibka iyo sawirashada iyo u diyaargarowga xataa inaanay ahayn wax baabka inooguba jirayba. marka wuxuu yidhi anigu gaarigaan la saarnaa madaxweynaha, nin iska qalbi wanaagsan buu madaxweynuhu ahaa ee gaarigu ka degay markiiba, xabadduna way ku bilaabantay. marka dhammaantayo waanu shoognay oo waanu u qaadan weynay. maalinkii ku xigay mise maalinta mar si degdeg ah baa markaa meydkii caasimadda loo keenaya. marka waxaa la socda markaa gudoomiyihii iyo taliyihii bilayska oo gudoomiyihii markaa baarlamaanka oo si automaatika ku noqday madaxweynaha dalka. kolka madaxweynuhu markuu yimaado isagoo meydkii madaxweynahan la sido magaalada Muqdisho, wuxuu leeyahay dad badan oo warku soo gaadhay ayaa isu soo baxay. haddaad aniga iga bilowday buu odhanayaa markaa halkan u socda waa haddaad aniga iga bilowdo qof Soomaaliyeed oo suuraysan karayay madaxweyne Soomaaliyeed baa gacan Soomaaliyeed ku dhiman karaa ma jirinba. waxaanu meesha soo dhigannayba ma aha. waa ninkii ku mahmaahay laba walba is saarayo laba tagoogo isma saarin. waxa la yidhi nin baa marka laba reer buu xoolaha u raaci jiray, marka labadiiba allabari bay yeesheen. marka wuxuu yidhi isma oge kolley mid kastaane hilib fiican oo waslad fiican bay kuu dhigi doonaan. dadna wuu xisaabtamay haddii tani garab kuu dhigto xaafadda kale 5 shay kuu dhigi karta, haddii tani intaa laba hilib oo kastoo mac ayuu isa saaray. hadhow tuu markaa reer kastaaba xisaabtiisu lahaayo wuxuu is yidhi inanka de reerka kale wanaajin doonee adigu tagoogta oo halka neefku ku socda ah u dhig, waslada kale reerka kale siin doonaa fiicane. kadibna labadiiba waxay noqdeen laba tagoogood oo markuu weelkii furay laba tagoogood baa uga soo baxay. markaasuu laba walba isa saarayo laba tagoogo isma saarin oo isma odhan laba tagooga kuusoo hoyan doona. marka Sheekh Mukhtaar wuxuu leeyahay laba walba waa la sasaariyo madaxweyne Soomaaliyeed baa gacan Soomaaliyeed ku bixi doona, cidina ismay dhigan. marka taas maxay saameynaysaa? xataa waxay saameynaysaa sida amniga madaxweynaha loo sugay taa beddelkeeda maanta waxa madaxweyne Soomaaliyeed ah qof isugu sawiranayo in gacan Soomaaliyeed ku dhimanayo heerkeedu gaarsiisan yahay inuu inankiisa ka dhigto taliyaha ilaalada ciidanka. marka waad arkaysaa kalsooni darradii xadka sida uga baxday siyaasadda uga soo muuqan karto. waxaan sidoo kale waraystay dhowr qof oo markii la qaxayay ku noolaa xamar oo deegaano kala duwan u qaxay. waxay ka sinaayeen waxa weeye ereyga caamka ah ee la yidhaahdo qabtaa nagu dhacday. markii qabtu dhacday baa la yidhahda. marka ogow waxaan cidina ma ay xisaabsanayn, waxaa loo arkaa wax qallad ah oo aan meel aanay ahayn inay dhacdo. wixii la dhacayay inqilaabkii dhacayay kala talisnimadii marba samaysmaysay, dadkii la caburinayay, xarigii, dilkii, wax kasta oo sii yaalay masaa'ibkii hore astaamaha u ahaayoo dhan laguma waayo arag, laguma qaadanin cibro. qab baa loo bixiyey. waxaa loo arkay inay bilaabantay bishii 1991 in musiibadu bilaabantay oo maanta ay hawada inaga soo degtay. marka dadkaas waxay ka siman yihiin waxa weeye magaalada Muqdisho marka meel wax ka dhacaan inay meel kale u yara barakacayeen ama meel yaro aan aad uga fogeyn magaalada duleedkeeda, magaalada u dhow tusaalahaan ay u barakacayeen. waayo markaa dad badan oo aan xataa qoysnahay sanad baa laga yaabaa inay Muqdisho ama aaggeeda ay marba meel yar tegayeen oo xabaddu eryanaysay. ereyga caanka ah marka ay ka siman yihiin aan anigu arkay waxa weeye marka inay dhammaantood leeyihiin siyaabo kala duwan iyagoo cabiraya. cidina isma lahayn xamar baa lagu kala yaacaya. cidina isma lahayn xamar baa lagu kala yaacaya. marka waad dareemaysaa qofkii waxaa u soo taagnaa madaxweyne Soomaaliyeed oo gacan Soomaaliyeed ku dhintay, qofkii soo taagnaa jamhuuriyaddii Soomaalida
laislahaa waa la mideeyeyo u burburtay talaxumo iyo dhiig, qabyaaladii oo cirka gashay iyo dagaalkii qabiile, dagaalkii sokeeyo oo xoogeystay, dadkii oo meelo badan isku qalanaya. Qofku waxaasoo dhan soo taagnaa, mararka qaar waxay soonaysaa ob lidka wax kasta uu ku fakarayay ayuu tegaya. Marka hadduuna inankiisa ka dhigan ilaalada, taladaada qaadan maayo markuu ugu yar yahay. aad iyo aad Ah, meesha fiican. marka taasna waxaan isleeyahay iyadana waa qodob kale oo aan ku dari karayno. Kolka waad dareemaysaa inay isu markhaati furayaan waayaheena dhow, taariikhdeena iyo dhaqankeenna, iyo qodobadaas nafsadeed ee aynu ka sheekeynay. Oo markaad soo hadal qaaday qabka ama iigada, maarata markaad soo hadal qaaday, waxay u soo dhacaysaa aniga markaynu ka sheekeyno qofkan in la yidhi is-adkee oo maaran, inaad maaranto, maarmidda lagu dhiirigelinayo. Taladu maxay uga dhigan tahay? Taladu waxay uga dhigan tahay xadgudub ka dhana maarmidiisii. waa qof banaanka ka yimi oo kule ha maarmin, walaal ma maarmi kartide, ma kala maarmayne, ay waad baahan tahay, waxaad u baahan tahay talo. Ah, marka qofka kugu leh waa eed marka wuxuu qofka kugu eedeynaya inaad baahan tahay oo aadan maarmi karaynin, oo aadan isbixin karaynin keliga, inaad isbixin karayn, aad u baahan tahay cid kale oo qofkaas ah si uu talo kuu siiyo, amaba qof dee hawlwadaan caafimaad oo mihnadle ah. muxuu ka garanayaa waxan baa qofku odhanaya, arrinta muxuu ka garanaya, maanigu ileeyahay, maanigu hebel ah, oo hebelaaye hebel ah, waa nin hebel ah ayuu ileeyahay aniga sidaa iyo sidaa samee, maanaa lagu odhan kara. Marka marar badan waxaynu eednaa waxa weeye qof gebigiisuba aynu inagu ka filayno inuu siyaasaddeena hagaajiyo, ayaa laga yaabaa isaga hawsha u weyne u taalaaba inay tahay inuu qabkiisa ilaaliyo. Innaguna waxaan isleenahay qarannimadu idin ilaalinaya. Marka qodobada marka laisku daro waad dareemaysaa in ahay kolkaa waxaan dhanka cilmi bulshada waynu taabanay, oo dee haddaad qodob ku darayso maadaamaad si gaara u baratay cilmi bulshada, hadda iyadana haddaad dhanka wax kaga darayso kugu soo dhaweynaya. horta waxaa runtii qodobadii aan ka hadalnay oo maaragtay ku saabsan kii psychological conceptski waxaa ku xirtay dhaqankeenna, tusaalooyin fiican baa usoo qaadatay. kolley cilmiga maarkano bulshada iyo daraasiinta dhaqankuna waa isku xiriiraan, maarkano badanaa habka uda xiriirno culturekeen waxaa la qiimeeya maxaa la value garaya, waxyaalaha cultureka uu qiimeeya maxaa ka mid ah oo qofka lagula taliyo. tusaalahaan waxaa sheegtay inuu qofka tashado, inuu maarmo. waxay ka imanaysaa dhaqankan oo ah nomadic life, qofka inuu ceeb u arko in dad ku tiirsanaado. waxay ka imaanaysaa dhinaca vulnerabilityga, qofka inuu dareemo, qofka markuu tala doonanayo waa qof dareemaya ka khaldan yihiin oo kale ama u baahan in la hago. marka qofka inuu dabacsanaan muujiyo, maarkin uu dhaho maaragtay markaan waxaan u baahnaa talo inay dhaqankeenu uusan qiimeynin waxyaalahaas oo kale. waxyaala badan marka waxaa jira dhaqanka valueska guud ee dhaqankeena ka jira. marka haddii aan kusoo laabtay markaan wada hadal sheekada aan dhegeysanayo, waxyaalaha iga soo dhexbaxa ka mid ah inaan dib u eego waayaragnimadeeda shaksiga ee dadkan la kulmayay, waxyaalaha ugu waaweyn, caqabada ugu weyn maxay tahay qofka Soomaaliga haysta. taas waxaan ka hadlay si guud aan u hadalnay daay midda guuda bini'aadamka iyo waxyaalaha ay ka sheegeen literatureka psychologiga, laakiin si guud aniga maxaan arkay shakhsiyan inaan ku daro. waxaan aniga ugu weyn oo Soomaalida inta badan anoo fiirinaya dee aan eedeyn shakhsiga Soomaaliga, laakiin duruufaheena marka la eego sababeen waxaa ka mid ah inay nagu adagta ereyga u bixisay iska warqabka ama ogaalka, insightka ama self awareness aad noogu yaryahay. badanaa dhaqankeena aad uma qiimo qofka inuu meel cidlaa fariisto uu fakero waqti qaato oo dib u eegis ku sameeyo noloshiisa, aad bay noogu adag tahay. maanaa waxaan keenaya buuqan ku jirno, orodkan ku jirno. haddaad fiirisid 24 hours nolosheena waa busy, maraan hurudno iyo maraan dadku dhex jirno iyo maraan shaqo ku dhex jirno iyo maraan fadhi ku darar fadhino, maadna waa buuq ma arkino. haddana waxaa soo kordhay waxaan dhahan social media qofka waqti badan ka qaata. marka waxyaalaha marka uu therapiga ama talinta caafimaadka ay qofka barto ugu weyn waxaa ka mid ah insight. marka aad insight heshid, insight wax kale ma aha, waxa weeyaan qofku badanaa wuxuu ku mashquulsan yahay hortiisa wax ka muuqda, waxaad dhaleecaynaysaa adduunkii, waxaa hortaada ka muuqda, dadka kuu muuqda. laakiin markaad dib u eegis adiga dib isku eegtid waxaa ku soo baxay waxyaala badan ku baraarugsaneen, naftaada baranaysaa. aqoonta ugu qaalisan waa self knowledge-ka, qofka naftiisa barto, sidee u falcelisaa, maxaa kaa qaldan,
xagee marka taa laftigeeda marka inuu xitaa waxyaala u waaweyn naga maqan aniga u arka shakhsiyan markan qofka Soomaaliya in la baro la rabo suu tala u qaato macnaha taas waa skillska ugu weyn naga maqan self reflectionka waxaa dadka maaragtay cibaadaysta oo maaragtay weliba tasawufka sameeya khalaaweeya they have that kind of insight because waxay leeyihiin maaragtay nin maalin aan soo dhigay facebooka jiray oo ka hadlayay maaragtay inuu khalaaweeyo oo kale marka inuu soo kaco habeenkii saq dhexe ilaa waaberiga kale maaragtay u sameeyo meditation ama khalaawo ama maaragtay marka dadka inay taas marka u baata 10 minutes per day marka every day waxa u baahan tahay inaad 5 daqiiqo aad dhaqaatid reflection break wuxuu muhiimka u yahay asaas marka shaqo ku jirto oo kale inaad taa marka waa xoojinaya waxa marka taa waa midda ugu weyn naga maqan hadda daafirisa Soomaaliya oo kale dadka ku jira ama madaxda oo kale waxa laga yaabaa inay habeen imaanin ba shaqeeyaan inuu soo waqti kaliis nafis la noqonin marka qofkii marka dib u eegis ma sameyn karo go'aanada uu gaaray maanta wuxuu ku jiraa action after action ficil taa marka waa arrintaas dhigi karo shakhsi ahaan iyo community ahaanba midda kale oo aan ku daraya waxa weeyaan arrinta ah sawirashada mustaqbalka ama future thinking waxa la yidhaahdo oo ku sheeg si fiican u sharaxaya dadka kabta ku dhacday ayagoo dhex fadhi ku duntay hadda ariga la isticmaalo waxa waaye guriga maxaa ku dumay oo kale hadda ariga aad loo isticmaalo social waa aragtay hebel guriga ku dumay ana qofkaas ku dumay waxa weeyaan ma ka fakerin waxa dhici kara markaasoo dhex fadhi wixii ku dumeen waraysiyo badan dadka ka qaxay xamar ay bixiyaan xilliga 1991 way sheegaan intood laakiin ninkii ugu cajiibka badnaa wuxuu ahaa ninkii ii sheegay maaragtay ii sheegay inuu Soomaaliya inay burburayso u arkay 1982 in Soomaaliya burburayso marka dadkaas oo kale waddanku ka tageen way isaga haajireen walaala yaaban waddanka maxaa u tagaysaan waxaa waxay lahaayeen future thinking qofka inuu sawiran karo marka waa ability ama awood dadka qaarna ilaa dadka qaarna waa wax la baran karo waxaa ku baran kartaa marka arrinta daan sheegay iska warqabka marka dib u eegis wax ku samaysid mustaqbalka waa garan kartaa marka wuxuu la soo maray aad fiirisid meesha la taagan yahay aad fiirisid mustaqbalka waa sawiran kartaa taas waa ina arrinta ugu weyn oo Soomaalidu maaragtay ay mushkiladeen ugu weyn oo go'aanada istiraatiijiga badan u qaldan waxaa jira daaya mar aad ka sheekeynaysay dilkii madaxweynihii hore maaragtay sharaxiisa waxaan soo xasuustay waxaa mar baa jirta 2017 aan aruurin jiray waxaa iga lumay folderkan kusoo waraysiyo ka hadla dadkii lala taliyey madaxdii lala taliyey Soomaaliya talooyinka diiday wixii laga dhaxlay marka ninkii ugu cajiibsanaa wuxuu ahaa Allah u naxariistay nin la oran jiray kiimiko magaciisa saddexan waa laqsanaya maxaa laakiin wuxuu ahaa madaxweynihii galmudug marbuu madaxweyne galmudug wuxuu ahaa ambassadorka Soomaaliya u fadhiyay Sovietka waagii ay dowladda Soomaaliya la dagaalantay Ethiopia 1977 marka wuxuu ka sheekeynayaa marka sida dowladda Ruushka ay iskugu dayday inay la taliso hoggaanka Soomaaliya waqtiga ay jireen dagaalka soo gelin marka dhibkii la maray safaradii la soo maray diyaaradii la soo raacay inta shir oo la galay si marka madaxweynihii loola hadlay golaha sadaaqaanka loola hadlay wuxuu ka sheekeynayaa waraysi cajiib ah I think ina YouTube ku jira laga yaabaa dadkana kula talinayna marka wuxuu ka sheekeynayaa processka ilaa uu imaanayo wasiirka arrimaha dibadda taliya ciidanka marka midowga Soviet xamar imaanayo oo la leeyahay dagaalka hadduu dhaco waxaa sawirataa waxa dhici kara marka ay diideen madaxdii markaas joogtay ku adkaysteen marka waxa ii muuqata markaas kale go'aanada la gaaro badanaa hadda sawir loola taliyo qofka inuu ilaa uu soo taabto isaga saa sheegays daayad lama aragtay marka waxaa jira tusaalooyin fara badan markuu gacanka waddanka burburayay madaxdiina la taliyey leeyahay waddanku burburaya at least badda magaalada geeska ka socotaa marka xukunka sigaata oo kale hogaamiye kooxyada qaar oo la talinaya ku jira YouTube-ka oo diidaya ilaa hadda maanta ay taagan tahay marka qofka ilaa uu soo taabto marka waa wax oo future thinking marka laga yaabo qabki daa waxa sheegtay ari cajiib ah qofka aan u dirsan inuu qaran noo ilaaliyo inuu qabkiisa ilaalinayo I like that marka inuu asiga difaac naftiisa laga adkaanin ma hebel baa kula talinaya ma hebel oo marka waa kala dheeraysan tahay ma ka awood badan tahay ama ka ciidan badan tahay kula talayis qaanaysa in iska imaanaysa taa marka taa waa dhinaca siyaasadda waxaa xoog saar laakiin individual level marka fiiriso qofka uu sawiran karo marka 20 sano jirtid 20 sano kadib maxaa dhici doona marka waa yeelowid maxaa ku dhici doona marka hadaad wax baranin maxaa dhici doona hadaad xaq dhiganin meel la qofka inuu sawirto future-ka inuu sawirto marka laakiin waxaa jira waxyaalo oo dhaqankii diinta ku xiriirto oo badanaa qiimeeya in loo daayo talada kulli qolka soo taabto ma jeclaan lahaa hadhow marka in la yiraahdo inaan la qiimeyn yiraahdo wixii dhici doona ma ogin qadarti ilaahay baa marka ugu socdaa maaragtay
welwelka faraha badan looma baahno macnaa dadka qaar markaa fiiriso kale dadka qorshayaasha oo ku fiican future think waxyaalaha caqabadaha kuna waxaa ka mid ah cultureka iyo fasiraada diinta kole diintu dina kasoo horjeeda ilama maaragt qofku inuu ka fikiro mustaqbalkiisa wuxuu noqon doono u sawirto maaragt marka taasna waa mid iyo midda kaloo ah qofka inuu barto waxa emotional regulation inuu dareenkiisa dejiyo markuu talooyinka la siinayo qofkii aan kacsanayn inaan tala la siinin inaan la ceebeenin inaan qofka la dhaleeceenin waxyaalahaasoo kalena waa arrin maarata aan ku dari karaa sax wey. marka dhinaca sociologically marka la fiiriso ama dadka Soomaalidu waxa ay inta badan yihiin ana aragtideeda waa reactive macnaha waxaan nahay dad mar walba ka falceliya wixii dhacay haddii wax dhacaan aad baa loo gurmado haddii dab dhaco kale Soomaalidu waa iskugu timaadaa dabkaas dhibaatadii ka dhacday dadkii loo gurmado laakiin markuu dabka la xalliyo laisma weydiiyo war dabkan suu soo laaban lahayn shaqadeena ku mid waxaan u aragnaa in hadhowtin xallin karno kale ma arkin inaan waxaan la samayn kara hadhowtin marka waxaa laga yaabaa mushkilad taagneed inay soo laalaabato wax badan oo aan nahay dad proactive aan ahayn inta la fadhiisto hadda marba waxaa jirtaan dowladda la shaqeeyo kale waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah shirarka isugu imaado oo iga yaabiyo waxaa ka mid ahaa miniteska shir walba minutes baa la qaadaa dabcan waxaa la qaadaa wixii xusuus qor baa shirka laga sameeyaa marka action points baa jira laga gaaro shirkaas marka laisku imaado adiga waxaa filanaysaa in qodobadii shirkii hore dib loo eego la yidhaahdo maxaa ka sameynay maxaa laga sameeya marka waxaa laga yaabaa marka in lisxasuusiyo wixii dhacay oo laga warqabo la yidhahdo shirka hore muxuu ku saabsanaa shirkan kii labaad waaye laakiin qodob haddana dib loo qoro qodobadii hore loo qoro kale mar labaad la qoro oo saa ay ku socoto dhowr jeer shirarka marka waxaa fiirinaysaa mar qaar oo kale nasiib marna nasiib wanaag bay noqotaa marna dhibaato xusuusteenna aad bay u gaaban tahay waa Soomaalida la eego oo waxaan isku daynaa mar waxay leedahay anay tahay coping mechanism oo inaan xaalii dhacay aan ilowno ma fahanto aan ka soconno oo adkeysiga daa ay sheegayso kale taariikhii dhacay la xis aan dib loo eegin yiraahdo ha eegin ma arkano eri waxaa jira caan mudubka ay xalay dhaliilin yiraahdo ka noqon marka wixii dhacay arkano ka soco maaragtay marka waxaas waxay diidayaan in qofka inuu ka fakaro waxa marka la dhici karaan qofka isku dayo dhowni waxaan ay ku dhacay ay marka dhici karaan waxa yiraahdaa qofkaas dhaqankeena ma qiimeeyo waxa yiraahdaa inuu loo arko shaki badan buuq badan hebel waa isku dhaxyaacay hebel wuxuu ka baqayaa maaragtay waxaan loo joogin mabi trauma noqon karto laakiin waxaa jira obvious dadka qaar in Soomaaliya hadii ku socoto hadda maalin waxa la sheegayo waxa weeyaan waxyaalaha dad waxaa jirna saaxiibana waxa jira aad u walwala oo concern ka ah isbedelka adduunka ka dhacay saameynta Soomaaliya ku yeelan doonto kale geopolitics adduunka ka socda dhaqaalaha adduunka isku bedelay dowladaha adduunka isku bedelaya saameynta inuu yeelan karto dadka noocaas marka waxay arkayaan Soomaaliya kor ka fiirin inay leeqata ku socoto laakiin dadka noocaas talada ma qaadan wax laga yaabaa hadii walwalkaas jeedin in loo arko very abstract wax aan soo soconin oo aan dhici karin ilaa markii dambe ay dhacdo in lagu baraarugo marka arrinta iigada qabka si fiican u sharaxay dhaqanka Soomaalida waa la qiimeeyaa qabku maaragtay waa wax keeni kara self esteem kana la xiriira habka loo soo barbaariyo sociological la xiriira karta habka barbaarinta ilmaha loo barbaariyo taana waxba ka sheegtay marka waxa fiican inaan isweydiino saameynta arrintan ugu yeelan karto iyo xalka muxuu noqon karaa dabcan aad baan ku dheeraanay صح gabadha la sharaxay waa sax weeye aad iyo aad u mahadsan tahay laba qodob baan rabaa inaan degdeg u taabto mid waxa weeye waan ku dul xasuusta markaad tiri markaad tusaalaan ummadda guud ahaan waxaan u arkaa cilmi bulsho ahaan in Soomaalidu ay tahay reactive ma dad wax ka falceliya waxa xiise leh in reaction ama reactive aynu af Soomaali erey u leenahay waxaan falcelin laakiin proactive uma lihin erey cajiib ninba ma noqonaysa qofka oo daraso nin hadda geeriyooday la oran jiray Ibrahim Hurre Buubaaba ayaa mar soo jeediyey ayaa mar isticmaalay ereyga ah falcurin proactive isagoo marka waxay dadaal shakhsi ah oo keligaan ku arkay anigu laakiin umad ahaan ereyga falcelin waan naqaanaa laakiin lidkiisa ma lihin marka waad dareemaysaa in meel aan loo haynin proactive-ka ta labaad waxa weeyaan ereyga feker oo qofku maaragtay markaa taabatay qofku inuu iska warqabo oo uu kordhiyo ogaalka uu naftiisa u leeyahay inuu fekero weeye oo naftiisa ka fekero hareerihiisa ka fekero gudihiisa ka fekero dareenadiisa la socdo yidhaahdo waxyaabaha kaa cadhaysiiya waa maxay talo maxay kaaga cadhaysiinayaan waxyaabaha ku kiciya waa maxay talo maxay kuu kicinaya waxa ku dejiya waa maxay waxyaabaha ku taageera ee protective factorska ku ah ee ku ilaalin kara waa maxay waa sidaad xoojin kartaa kuwan sidaad u dhimi karta laakiin dhaqankeeni waxyaabaha tahay inaan ku baraarugno waxaa ka mid ah ereyga feker dhaqankeena wuxuu leeyahay macnaa taban buu leeyahay
heeseenna waxaa ku jira ha fakerin naftayda ay weligaa ha fududaan. nafta waxaa lagula talin inaan fakerinba, waayo fakerka waxaan naqaanaa werwer. ereyga marka qofkan faker baa dilay baa oranaya. waa macnaha caamiga ah ee bulshada ku dhex faafsan ee ereyga faker, wuxuu u egyahay inuu yahay wax taban maaragtay, oo qofku inuu iska werwerayo oo iska walacaadayo. marka labadaa qodob waan rabay inaan yara xuso oo aan hadalka ku xasuustay si aynu ugu xidhiidhino dhaqankeena. marka taasoo iyadoo saas tahay, dee misana xalku ma aha in intaa sidaad sheegtay dee macnaheenu aynu u fadhinaa ma aha, ama aynu u jirnaa ma aha inaynu intaynu ummaddeena maagno dabeedna aynu iska rawaxno. waxbaa inoo muuqday kadibna waxaa inoo muuqday nafteenna laga bilaabo ilaa cid kasta oo kale oo dee hadalkeenu gaadhayo. waxaa inoo muuqday inaynu isla aragno kadibna maxaa talow halkee laga bixi karaya oo xal ah aynu isla qaadano. marka halkaas baan rabaa inaynu hadalkeena iminka inta inoo hadhay waqtiga aynu ku ururino, si aanay arrintu u noqon weerar iyo weerar celis. waayo sidaad tilmaamtay, qofka Soomaaliga waxay u weyn ee uu ilaaliya waa dhegta, waa sharafta maaragtay qofka. oo dhegxumadu waa waxa weyn waxa xun ee qofku dhici karaya. marka haddaad qofka dareensiiso wanaag uu leeyahay laakiin aad kaa dareemo inaad yasayso, arrintaasi faray ka baxaysaa, ama qofkii wuxuu ku qasbanaanayaa inuu noqdo keebla yuurur ama maarata uu isdifaaco sidaynu idhaahno. marka dhaqanka inagoo ka bilaabayna, sababtan dhaqanka markaa u xoojino markasta aan xoojinayo waxa weeyaan waa meelaha iyadoo oo uu ina fahansiinayo dhibaatada, xalkana laga yaabo inaynu ku dul dhisi karayno isla mahmaahyaheena, isla dhaqankeenna, isla waayaheenna halkaa ka dhex keeni karno, si aynu u dareenno in aynu dee aynaan ahayn ummad baaba oo waxba iyadu aan lahayn wax raasamaala. ma raasamaal fiican baynu leenahay marar badan, mararka qaar waynu haleeli la'nahay inaynu raasamaalkeennii bal manaafacaadsanno, ayaynu marar badan haleeli la'nahay, wax kale aynaga mashquulinayn mooyaane ma raasamaal li'in. marka tusaale ahaan waxaa la yidhaahdaa mahmaha Soomaalida waxay kuwa ugu caansaneed xagga togan inoo tilmaamaya talada ku arooro waxaa ka mid a talo adiga ku nool iyadu kuguma noola. talo adiga ku nool iyadu kuguma noola. nin keligii tashtay waa nin orgi rartay. qof isla orgi ku guur uu la mid yahay qofka keligii tashtay. sidoo kale waxaa la yidhaahdaa wixii aad qarsataa way ku qurunsadaan. markaa inaad dareenkaaga soo dhaafiso, inaad cid kale u baahan karto. sidoo kale waxaa la yidhahdaa wax wada qabwaa'aad, oo maarata in waxa lagaala siman yahay oo aadan keligaa ahayn inaad ogaataa wax weyn bay kuu soo kordhinaysa. marka tusaale ahaan in qofku uu fadhiyada la talinta iyo daaweynta nafsadeed ee wadarta ah ee group therapiga la yidhahdo, inuu qofku kasoo qayb galo oo soo fadhiisto, ama support group maaragtay taakulada kulanada taakulada ah ee dadku ay istaakulanayaan si nafsadeed, inay dadku isu yimaadaan oo sheekaystaan oo yidhaahdaan tan baa igu dhacday oo tan kale igu dhacday. waa wax dhaqankeena ku jiri jiray oo aad meelaha qaar ka dareemayso dadku inay ragbo ood ka sheekeeye baa la odhanaya tusaale ahaan. markaa dadku inay dhibaatadooda ka wada sheekaystaan oo ay dareemaan in ay sida runta ah keligood aanay ahayn, arrintaanay madi ku ahayn oo wax weyn. marka taasna waa wax dhaqankeenu inagu dhiirigelin karayo oo aynu uga faa'iidaysan karno in idhaahno qofku wuxuu talo ugu baahan yahay waayo waxaad qarsataa way ku qurunsanayaan. meelaha qaarna waxa laga yidhahdaa waxaad qarsataa way ku qarsadaan. marka halkaas baan rabnaa inaan ka bilaabo oo adiga aan kugu soo dhaweeyo bal markaynu isticmaalayno maarata cilmiga sugan iyo dhaqankeenna iyo wixii la halmaala xaaladda aynu soo sharaxnay, tala qaadashada iyo tala dhiibashada iyo tala garashada la xidhiidha, sidee baa loo horumarin karaa? marka waxaan weliba jeclaan lahaa hadday suuragalta inaad ka bilowdo asalkaba qofku muxuu talo uga baahan yahay horta. absolutely yeah. horta maasinta cabdicasiis si fiican u sharaxay maamaayo cajiiba oo muujinaya muhiimadda tala qaadashadu iyo talada ay leedahay waa sheegtay. waxaan rabaa marka inaan su-aashaas ku bilaabo, why does a person need advice? macnaha why qof ugu baahan yahay advice psychologically marka la sharaxayo waxa la qofku wuxuu ugu baahan yahay talo. waxa weeyaan qofku ma arki karo
keligiis ma arki karo dhinacyada kala duwan ee noloshiisa. Tusaale ahaan oo kale hadda anida waa hadlaynaa, adigu hadda gadaashaada waan arkaa ama gadaashaada aragtaa, waa ii sheegi kartaa haddii gadaasha wax ka soo socdaan, adnaa kuu sheegi karaa, laakiin anigu ma arko dhinacyada dhan nolosheeda ma arki karo. Horta taas harta waxay tahay qodobka ugu weyn oo qofku talo uga baahan yahay. Macnaha waa central issue, macnaha inaad ku baraarugtid warniyow wax walba ma arki kartid. taa markaa ka duushid waxaa ku fudaan inaad warniyoo tirahdid maaragtay arrintaas ay iga fiican tahay, maxaa tala iga siinaysaa oo kale. Marka waxaan ognahay kulligeen waxaan leenahay wax la blind spot, sida aan sheegay meelaan arki karin inaad sii jeesatid maahe ama lagu sheega ma aan lahayn. Dhinaca kale uu taladu muhiim u tahay waxa weeyaan in ay naga caawiso arrintii aan sheegnay ka warqabka nafteena, insight-ka. Aniga hadda markaan sheekeen dabaallo safar yar aan tegey, marka dadkaas aan la safrayey waxaa laga yaabaa inay ii sheegaan waxyaala badan iskaga baraarugsaneen arkin. Ani keligii guriga joogo oo aan wax iska akhrisanayo ma arki karo, laakiin markaan in real world aan ku dhex jiro oo aan soconayo dad waa ii sheegi karaan, marka waxay arki karaan emotionskeygii, sida anigu ahay qof mararka qaar oo kale qaabkaan u dhaqmo kale ii sheegi karaan. Marka taas horta ugu muhiimsan arrinta oo ina ogaatid awooddaadu inay xadidan tahay, ogaalkaaga inuu xadidan yahay, taa inaa ogaatid. taa markaa ogaatid waxaa kaloo ogaanaysaa inta badan in taladu aysan ahayn inaad ku baraarugto, inaysan ahayn controlling. waxay dhahaan erey waxaa jira qofka kula taliya waa qofku jecel oo kale, ma garanayo ilaa maamadaas aad garanaysid oo kale. maama waxaa jirta sheegta qofka danta kaa leheen oo kale ama dadka aan ku danaynayn ma kula taliyaan oo ma arka danka ma laha, laakiin qofka inaad u ogaato kula tala ku siinayo kale inuu yahay qof aan control ka ahayn oo vulnerability-gaaga iyo psychological marka healthy tahay oo ku fahanto qofka inuu wax muhiim oo kuu sheegayo oo kale. Marka sidaas guud baa horta inta badan maaragtay ay keenaysaa inaad ogaatid waalidka, ehelka, asxaabta, macallinkaaga, weliba dhalinyarada aan kala hadlaa. Dhalinyarada oo kale waxaa laga yaabaa inay aad marka talooyin la siinayo. Hadda aniga talooyinka aan sida dhabta u qaatay waxaa ka mid talooyinkii ay waalidka u soo jeediyo markaa yaryadoo kale waxaa samee aad fahantid in qofkan uu ka shaqeynayo well-beingka iyo badqabka oo kale oo maaragtay. Marka inaan isku baraarujinno macallimiinta waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah oo inaan sheego Soomaalidu traumada miyaa keenaysa ma aqaan. hadda dadka professionalka waxaa la dhakhaatiirta Soomaalida in la dhaho dhakhtar Soomaali ah waxba iima sheegay, dhakhtar ajnabi ah ayaa la talinaya. Soomaalida dhaqanka ku badan tahay arkino in qofka ajnabiga taladiisa loo arko mid ka awan waxyaalaha colonialism uu keenay oo ummadaha la gumaysto dhan dhibaatadaas leedahay. hadduu dowlad carab ah oo muxaadaro iyo wacdi u jeediyo inuu mararka qaar ka micno badan yahay qofka kale. Marka inaan baranno dadkeena xikmadda leh ee aqoonta leh in taladoodu ay ka muhiimsan tahay dad dibadda ka yimid oo kale. Hadda dhakhaatiirta oo kale waa la yaabaa in aqoontii iyo farsamadii aysan lahayn, laakiin waxaa jira common idea in qofka Soomaaliga uu talooyinka dadka Soomaalida uu aad maaragtay u liido inta badan. Marka haddii marka practical skills qofku sidee arrintan uu maaragtay u develop gareyn karaa ama horumar karo tala qaato waxaa ka mid qofka marka inuu barto humility, dabacsanaan, qofka inuu accept gareeyo waxa loo mataqaanid. Dayna waa sheegay humility waxay keentaa qofka wax barto, waxbarasho. hadda markaa programkan aan sameeyo animkan YouTube galo wax akhriyo waxay curiosity aan ahay waxaa ogaanayaa ku baraarugsanahay in wax iga maqan yihiin. talada marka shakhsiga ah imada siyaasadda imada walba waxay ka bilaabanaysaa qofka inuu ku baraarugo waxyaalaha mushkilooyinka jira waxaa ka mid ah dadka hoggaanka noqda Soomaaliya inay in badan aaminsan wax walba og yihiin oo kale. arrintaas waxaa si fiican u sharaxay buugga adkeysi Cabdiraxmaan Cashur uu qoray. wuxuu ka hadlayaa waxa la yidhaahdo la taliye aan talinin qof la taliye ku magacaaban laakiin tale aan lahayn. ku arkaysaa madaxa Soomaaliya wax boqolaal la taliya la magacaaba, laakiin la taliye aan qofku la talinayaan la kulmin asal laftigiisa la taliyahaas waxa loo magacaabo uusan aqoonin. marka waa mushkilad la haysato waa in loo qaato in just shaqo kaliya ay tahay, laakiin adduunkaana madaxda wadamadan iyo adduunyada horumartayna la talintu iyo advisory tiimka tala bixinta bixiya dhan walba aqoonta marka in qofka uu fahmo adiga shakhsi baa tahay wax walba ma garanaysid halagula taliyo maaragtay. taa marka waa humility-gaas dadka inay bartaan oo qofka ku baraarugo waxay ka imaanaysaa daasaan sheegay insight-kii ka naftaada ka warqabtid aad og tahay meelaha ku liidatid meesha ka imaanaysaa. midda muhiimka Soomaalidan kula taliyo waxa weeyaan la talinta iyo ceebta in la kala saaro. ceebeynta advice-ka iyo shame-ka waxa la yidhahda. marka Soomaalidu waxay aad u necab yihiin oo anaga aan kulligan ka didsannahay oo maybe barbaarinteennii hore jahli traumadii miya qofka inuu ceebtaada ogaado. marka waxaa leedahay qofkan la taliyey talada uu bixinayo waa ceebeen miyuu ka wadaayo kale. marka that's why marka laga hadlayo therapy-ga
aan xoog u saarnaa marka hore trust u abuur inta tala la bilaabinba waxa la therapeutic relationship qof horta aad la talinayso inuu kugu kalsoon yahay aad la talinayso taladaas maarkino inay iyo inuu qof de waxaas yaqaana professional ah ama qof xikmad la waayeel oo kale ah oo aad dantaada ka shaqeyn marka in inta badan dadku aysan talada u diidin ayuu ka baqaya ceebeen kan talada bixinayana oo dadka ku ceebeenin ama haddii xog loo sheegana uusan dadka u sheegin uusan faafin confidentiality oo kale dad badan oo Soomaaliya waxay talooyin raadsan lahaa oo ka baqaya in xogtooda banaanka iyo shaymi ceebeen ka baqaya taana marka waa mid marka taas waa mid kale oo dadka in la baro rabo waxa weeyaan oo daayna ku bilownay dabcan waxa weeyaan future thinking qofku inuu barto sidee loo odorashaa mustaqbalka marka aad dib u eegtay markan haddii aan dabeecaddan aan wado maalo nin baan kula kulmay arkino magaalo kamid magaalooyin Canada marka saacad igu yimid marka waa sheekaysanay marka drugs ku joojiyay drugs mid ku dhex jiray marka wuxuu igu yiri su'aasha aan weydiiyay waxay maxaa kalifay inaad drugs ka joojiso kale marka wuxuu yiri waxaan sawirtay haddii aan drugs ku sii jiro aniga homeless ah oo darbiga jiifa qabowga arkino ka sawirashadaas mustaqbalka aad sawiran kartid wixii ka horreeya macnaha waxaa arkaysaa hortaada waxaa imaanaya ficilkan haddaad sii wadid waxa ka dhici kara wax ka dhalan karaa adiga imagine madaxda Soomaaliyeed ay sawiran lahaayeen maanta xaaladda lagu jiro u malayn maa inay go'aanaas qaadan lahaayeen ina sawirashada waa wax maaragtay qofku inuu barto haddii uu isweydiiyo haddii if I continue this behavior haddii aan dhaqankan aan sii wado maaragtay aniga xaggee ku dhammaan doonaa maaragtay qofku isweydiiyo taas u barto taas waa mid inuu qofka raadsado caawimaad waqti hore maarkino early qofka inuu talada dib u dhigan waxa qarsato day waxa tiri qoronsadaan hadduu dareemo uu arko mushkilad taagan inuu dadka weydiiyo yiraahdo maarkino xalku waa sidee xaqiiqa jiraan maarkino yaa la hadli karaa iyo mid kusoo gabagabeynaya waxay tahay inaan raadsano dadka talada bixinaya inay yihiin dad aqoontaas leh taladaas wax ka garanaya ama dad xikmad lagu yaqaano waayeela maarkino not all advice is a good advice sadaa sheegtay boqol maxaa qof xanuunsan boqol oo talisay kan boqol marka qofku wuxuu u baahan yahay dadka uu ka qaadanaya dad daacad ah dad experience u ah dad degan dad akhlaaq leh ethical leh inuu tala ka qaato maaragtay dad aan ka maseersaneen isaga waxa uu sameeyo kale haddii dadka ay taas helaan qaraaca haddii la helo waxaa imaanaysa maaragtay iyo midda ugu dambeyso ah wixii lagula taliyey dad kula taliyeen baan jeedinaynaa in action loo bedelo ficil waxay noqon kaliya talada dhegeysto oo lagu raaxaysto marka baarta literature-keena maxaa jirta talooyin qurux badan wadda dokumentiyada noo qoran recommendationada kulli way qurxiyeen marka in lagu daro taladii lagu daro ficil lagu daro waxaan kusoo gabagabeynayaa marka muhiimadda ay leedahay la talinta caafimaadka maskaxda the role of therapy marka shay muhiim loogu yahay marka talooyinkaas guud waa muhiim laakiin qofka uu maaha inaa caafimaadka maskaxdaada aad xanuunsan tahay inaad waalan tahay inaad problem u jira maaha waxaa u baahan tahay mashaakilka dailiga ee nolosha qof kala hadashid oo kala talisid kala taliya u baahan tahay marka badanaa wuxuu therapist uu kaa caawin karaa inaad fahantid your patterns of life macnaha habdhaqankaaga dailiga patterns-ka noloshaada inuu kaa caawiyo maarka tala diida dakoor inaad regret aan dareemin inuu shame-ka si loo yareeyo inuu kaa caawiyo self awareness-kaaga iyo insight-ka and dhistid waxyaalaha lagu dhiso waxaa kamid therapy-ga kamid ah qofka inuu barto sida go'aan qaadasho waxyaalaha talooyinka u waaweyn aan kusoo gabagabeyna waxaa hadda usoo dhacday talada ugu muhiimsan waxaa markaa go'aan qaadanaysa marka ugu baahi badan tahay decision making-ka taan go'aan qaadanin inaad haysato talooyin garab yaalla oo mid walba pros and conskiisa waxa ku fiican waxa ku xun yahay aad garan kartid iyo dadka kala talinay markaas inaad qaado marka waxa shaqada ugu adag ee qof madax qabto waa go'aan qaadashada talooyinka waa hor yaalaan ala laba talo shalay waxa daawanayay dowladda Canada oo go'aan ku gaaraysay maraakiib ee dhisanayso laba company ee tartan siisay marka midna waa South Korea midna waa Germany marka ka hadlayeen go'aanka ay gaarayeen inay company doortaan maraakiibta u dhisay wuxuu ahaa one of the difficult decision making process-ka uu adkaa ee go'aanka ka soo marka fiirso marka waxa laga yaabaa laba daran mid dooro ka imaanaysa go'aan qaadashadaas badan tala bixin badan ka sameysay marka waliba siyaasiyiinta oo kale dabcan maaragtay waa talooyinku way badan yihiin anaga laftigeena waxaan u baahanaa inaan wacyigelintaas aan wadno oo dadka marka u sheegno talo la'aanna ma hayse actionkii baa naga maqan marka intaas kusoo gabagabeyn lahaa tabics waxaa ku daraysa kulley soo dhow aad baad u mahadsan tahay Cabdillahi
wada intii muhiimsanayba taabatay oo waxa weeyaan kaalintayda waxay ku ururaysaa inaan israahdo leeyahay halkaa yar wax ku kab. Mm. Eh, marka dhaqankeenna waxaa ku jira in arrinkeen iyo aqbalkeen dadka loo qaybiyo. Mhm. qof arrinkeena oo talakeen ah, oo marka qof kastaa talada ma hayo isagu sidaad sheegtay. marka dhaqankeenu wuxuu nagu leeyahay dadku waa laba, waa arrinkeen iyo aqbalkeen. marka mid noqo ama labadaba noqo oo arrina keen, ajiibidiina la kaalayo dee qofkii la qaado ama naftaadaba la qaado, taas waa qodob. Eh, waxaan xoojin lahaa markaa qodobkaas ah in qof ogaado inaanu isku filnayn. ma kala maarmi karno. Macnaheedu maaha Soomaali ma kala maarmi karto, hadalkii wadaniyadda ahaa oo keliya maaha hadalkaynu wadnaa. dadku sidooda banaanba ma kala maarmi karaan, lama kala maarmi karo. waxyaabahan la kala qoqobay ee ina kala qaybiye ee kala duduwanna, eh, af leh, ee dhaqan leh, ee juqraafi leh, ee diin leh, ee taariikh leh, ee siyaasad lehna, eh, macnaheedu maaha inaynu mid halkeena ku kaaftoomi karno oo aad ka kala aadan wax alla waxaad uga baahantay jirin. dadku waa isku tiirsan yahay, marka taa inaynu dareensanaano. hadraawiyo taa ina xasuusinayana waa kii maanse ku daray asalkeeda garashada ha ka dhigin ogaalkaa. Yani waxaad ogtahay oo keliya ha ka dhigin asalka iyo maaragtay xudunta ay aqoonta iyo ogaalka adduunka oo dhan uu ku wareego. saas ma aha arrintu. wax kaa dahan baa jira, wax kaa qarsoon baa jira. waxaa jira wax aad adigu ogaan u qarinaysid iyo wax adiga lafta kaa qarsoon. taas waa taa. marka waxaan kusoo gabagabaynayaa anigu dhankayga, maadaama aad soo hadal qaaday, sida wacyigelinteena iyo wada sheekaysigan ka muuqatayna labaduba way isku dhex jiraan. marka talada iyo dee fadhiyada la talinta nafsadeed labadiiba caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka nafsadda labadiiba waynu tilmaannay oo waynu isaga gudbaynay. laakiin waa dixin baan rabaa inayn kusoo xidho dhankayga oo idhaahdo fadhiga la talinta caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka nafsaddu macnaheedu maaha qof aad u imanaysid oo mihnadle ah oo halwadeen caafimaada oo ku siinaya waxa ay tahay inaad samayso, arrimaha kaaga jawaabaya oo ku haya jawaabo safaariyo take away ma ku siinayo koonaya taa samee, halkaa kala mar subaxiisa xilligaa kac, hooyadaa la hadal, ha la hadlin, reerkaaga dhiso, ha dhisanin. maya, talooyinkaas ma aha talooyinka aad ugu imanaysid goobta caafimaadka maskaxda. saas ma aha. waxaad ugu imanaysaa laakiin talooyinku adigay kugu dhex jiraane in uu ku awood siiyo in aad naftaada la fadhiisatid, dabadeedna talooyinka iyo garashada iyo aqoonta iyo ogaalka naftaada ku dhex jira ee aadan ku baraarugsanayn ama hareerahaaga ka dhacaya aadan daadanayn ama dadka kale kaaga xidhan ee aadan garawsanayn inaad aqoonteeda iyo dhiirashadeedu yeelatid. maxaa iga qabya ah hawl wax ka qabashadeeduna qayrkay ku xidhan tahay, ayuu abwaankii gebiyey. marka marar badan inuu wuxuu fadhigani ku siinayaa, fadhiyadani waxay ku siinayaan talo guur maaha. tusaale ahaan qolka odhanaya da'diiba guurkaad gaadhee guurso ama ha guursanin, saas maaha. tusaale ahaan hadday arrinta xiriirka tusaale soo qaadan, taas waa tala bixinta waayeelka iyo xikmadda ku dhisan ummad ahaan iyo bulsho ahaan aynu kusoo caanamaalnay marar badan. qodobada aynu sheegnay ee shuruudaha u ahnaa ee daacadnimadu ka mid tahay iyo xikmadda iyo qof laftiisu ku sifaysan waxa uu ka hadlayo aad u eegaysid. halkan kalese waxaa jira guurku hadduu kugu weyn yahay oo ku yahay masale aad ka warwarayso, qofkii dhakhtarkii nafsadeed ama halwadeenkii caafimaadka maskaxdeed aad la kulmaysay wuxuu kaa caawinayaa inaad fahanto sababta uu guurkan kugu weyn yahay, sababta ay masalo u noqotay arrintan iyo dhinacyada adigu waxaad ka fekerayso. marka haddaad ogtahay haddaad ogeynba halkaas baa loo daadanayaa, halkaas baa laga soo saarayaa. dabadeetana arrimo laga yaabo inaad adigu kulanka kan ku xiga aad ku tirahdid arrintii aan maalinta hore ka hadalnayna waan dhinacyo badan markaan ka eegay waxaa ii soo baxday inaan tallaabadaa qaado. marka taas waxaan rabnaa inaynu iyadana ogeyno. markaan soo koobo waxa weeyaan tala garashada iyo tala qaadashada, labadaas ayaa ah labada ugu waaweyn. marka meesha goobta terabigu ka dhacayo ama maaragtay daaweynta iyo la talinta nafsada ka dhacayso, waxa ugu weyn lagaa rabaa
qofka looga baahan yahay waxa weeye inuu meesha ka faa'iido, waa inuu talada ku garto, tala garasha uu markuu talada ku garto buu qaadan karaya. tabtaa aad sheegtayna waan kula xoojinayaa fulin karayaa. oo haddaan taladii la fulinin waxay noqonaysaa afka baarkiisa iyo in maalin kasta lagu soo noqdo. waxaad arkaysaa iyadoo madaxda qaar lagu ammaanayo, ah, la leeyahay madaxweyne hebel ama wasiir hebel, marka 2 saacadood buu ku dhegeysan karaayo. waa nin ama waa gabadh talada urursado oo dhegeysta. hase yeeshee eh, looma gudbayo, ma fuliyaa qofkan markaa talada hagaagsan intuu kala doorto. kolkaa waxaan rabaa inaan kusoo xidho dhankayga. goobta waxa inoo yaalla waxa weeye eh, laba u eg inay isdiidan yihiin baa run ah labaduba. mid waxa weeye keligaa ma maarmi kartid, wax kastana ma ogid. midna waxa weeye naftaada adigaa ugu aqoon badan. marka aniga la isbarbar dhigo, haddaad adigu tahay qofka kale waxa laga yaabaa adigaa sheegi karaya waxa ku haysta, wixii ku soo maray adaa og. marka naftaada aqoon badan baad u leedahay. saasoo tahayna ma ogid wax kastoo naftaada ku saabsan. marka adigii naftaada aqoonta ugu badan u lahaa haddaadan ogeyn wax kastoo naftaada ku saabsan, garashadu waxa weeye markaa inaad u baahan tahay cid kuu dhammaystirta oo qabyadaas, waa qabye ku dhammaystirta oo qabyo ninkeedu ninkii lahaa ma dhammaystire, dadka oo dhan bay u taallaa qabyadu. marka qabyo ninkii lahaa ma dhammaystiro keliya dadka oo dhan baa dhammaystiri karaya. taas baan rabaa in iyadan kusoo xidho. gabagabaduna waxa weeye halkan wacyigelinteenan iyo mid kasta oo kale oo caafimaadba kuma gelayso halkii talada caafimaadka laftirkeeda. marka haddaad adiga ama cid kaloo aad jeceshahay si gaar ah ay baahi ugu qabto, ha u malayn in muuqaalkani kugu filaanayo. wuu ku hagi karaa laakiinse kuma kaaftoomi kartid. aad baad u mahadsantahay cabdillahi. wax ku dari lahaa adma waxaan ku darayaa 2 arrin oo soo gabagabanaya dhankeyga. mid waxa weeyaan waxaa sheegtay horta muhiimadda ay leedahay terabigu iyo muhiimadda waxaa ka muhiimsan qofka inuu faham ka helo, horta inuu fahmo waxay yihiin. waxaa tiri labadan iska soo horjeeda, qofka inuu waxna ma ogid, naftaadana adaa ugu ogaal badan. manaa waa dilemma qofka inuu xalli u baahan yahay. marka qofkan terabistiga ah maaha micneheedu naftaada kaa og yahay ama ku akhrinayo ama adi kaa warqabo. micneheeda macnaheedu waxa ka baqa dadka terabistayaasha inuu akhriyaa xog adaan u sheegin ma ogaan karo. wuu qiyaasi karaa waxyaalaha qaar inaad trauma la soo kulantay markaa yareedoo kale, laakiin waxa baala maaha laakiin baala maaha dadka fahmaa waxaan ogeenna kuuma sheegayo. laakiin saa daa si fiican baa sharxda. waxaa tiri anaga waxaa dhahnaa waa 2 qof oo wada sahan tegaya baa tihiin. macnaha waxaa tegay meel keen ah oo jiq ah cidla ah oo aan la tegin oo la saxmin hadda kahor, bale let's explore together, aan wada baxna aan soo eegno meesha maxaan ku aragnay. that's the therapy marka la sharaxayo. waxaa la let's explore together. marka waxaan leeyahay niyo waxa ii sheegtay saas bay ula ekeed ma saxba anaa ku weydiinaya. adna waxaa leedahay marka waa saxan tag wadareed oo 2 qof oo bukaanka iyo qofka maaragtay terabistiga ay wada tegayaan unconsciouska qofka, waxyaalaha qofka ka warqabin maankiisa, taariikhdiisa iyo markaas la leeyahay marka ka dhalanaya marka through that process wax ka dhalanaya saantagaas iyo maaragtay exploration wax ka dhalanaya insight qofka ogaal oo arrinta kuma baraarugsaneen ogaalkaas marka taas dadka inay fahmaan. gabagabeynaya waxa weeyaan muhiimka ah oo soo dhacay daaye. waxaan arkay dad badan oo siyaasiyiin ah oo talooyinka siyaasadda kale qofka kale talo fiican qof kale siyaasi uu hayo ama qof markaas xukunka jooga kaga soo horjeesta keliya qabkooda oo dho hebel aan sahayna talidiisa ma qaadanaya. waxaa fiican inaa intuu fashilma isaga inaa taladaas uu sameeyo aniga aan sameeyo. macnaha waxaa leeyahay ninkaan wuxuu ku fiican yahay inuu waxaas sameeyo hogaankaan hadda joogo kale. marka maadaama aan sayno aniga waxa ii siyaasadeeda iyo mustaqbalkeyga waxaa lidku ninka inuu guuleysto soo talada fiican duraba haya xataa. taana marka waxay keenaysaa waxyaalaha soomaalida nala haray ka mid ah. marka inaad fahamtid hadduu qofka kaa soo horjeedo talo fiican hayo oo taladii inaad ku baraarugsanto inay fiican tahay inaad ku taageertid, inaad tiraahdo urniyahu waa shahaynaa ninkan laakiin arrintan uu asiibay, arrintan waa inuu garabsiiyo ayoo fiirinaya taladaas muhiimadda u leedahay dalka iyo dadka maarka u leedahay. taas kusoo gabagabeyn lahaa. aad baan kaaga mahad celinayaa mawduucan inaad maaragtay nagu baraarujinaa discussion ka yeelano. isma oranay dee maaragtay 1 hal saac ay bar ku dhowaad
buu iskaashi qaadan doonaa boostiga yaraa iyo muhiimadda ulaa marka waana maxaad meesha ka cad inay tahay waxyaala badan u baahan iskaashino fara badan aan sameyno mustaqbalka hadduu ilaa yiraahdo intaas kusoo gebagabeyn lahaa aad baa mahadsan tahay aad baad umahadsantahay. asalaamu calaykum